tobanka dal ee ugu awoodda badan qaaradda Afrika sanadkan 2025-ka. Dalalkan waxay ku kala sareeyaan tirada ciidanka, tiknoolajiyadda dhinaca militariga, iyo awoodda difaaca cirka iyo baddaba. Haddaba ku soo dhawow channelkeena Tubtan Soomaali oo nagu soo biir leegtana ilaawin. Aan ku bilowno waddanka tobnaad waa Liibiya. Waxay kaalinta 17aad kaga jirtaa dunida, halka ay Afrika kaga jirto kaalinta tobnaad xagga awoodda militari. Waxayna xoogga saaraysay sanadihii u dambeeyay dib u dhiska ciidamadeeda. Sanado badan oo dagaalo iyo khilaafaad ah kadib, waxay leedahay in ka badan 400 oo taangiyo dagaal ah, kuwaas oo badankood laga dhaxlay xilligii Midowgii Sofiyeed. Waxay leedahay ciidan aad u ballaaran oo ka badan 100,000 oo askari. Ciidamada cirka waxay haystaan 22 diyaaradood oo kuwa dagaalka iyo 13 diyaaradaha kumaatika u kaca ee helikobtarka. Ciidamada badda waxay leeyihiin maraakiib yaryar oo ilaaliya xeebaha Mediterranean-ka. Dalkan wuxuu weli la tacaalayaa khilaafaad iyo dagaalo sokeeye. Suudaan waxay kaalinta 17aad kaga jirtaa dunida. Afrikana waa waddanka 9aad dhinaca awoodda militariga, waxayna leedahay ciidan aad u badan. Inkastoo muddooyinkii u dambeeyay dagaalo sokeeye ka socdeen, Ilaahay ha u sahlee. Waxay leedahay 450 taangiyo, kuwa dagaalka, iyo gawaari badan oo dagaalka dhulka ah. Suudaan waxay leedahay ciidan aad u ballaaran oo ka badan 144,000 oo askari. Ciidamada cirka waxay haystaan 24 diyaaradood oo kuwa dagaalka iyo 15 diyaaradaha kumaatika u kaca ee helikobtarka, kuwaas oo badanaa loo isticmaalo dagaalada gudaha. Suudaan waxay ku dadaalaysaa inay casriyeyso nidaamyada difaaca, inkastoo dhaqaalaheedii hoos u dhacay oo dagaalo sokeeye ka bilowdeen. Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo oo loo soo gaabiyo DRC waxay kaalinta 66aad kaga jirtaa dunida. Afrikana 8aad, waxayna xoogga saartaa dhisidda awooddeeda militari. Waxay leedahay in ka badan 200 oo taangiyo iyo gawaari gaashaaman oo badan. Waxay leedahay ciidan aad u ballaaran oo ka badan 100,000 oo askari. Ciidamadeeda cirka waa kuwo yar laakiin sii kobcayay sanadihii u dambeeyay, iyagoo haysta 10 diyaaradood oo dagaal iyo 15 diyaaradaha kumaatika u kaca ee helikobtarka. Waxay leedahay ciidamo badda oo yar, inkastoo caqabado badan ku gadaaman yihiin. DRC waxay markasta sii wadaa inay cusboonaysiiso awoodda ciidamadeeda. Morocco waxay kaalinta 19aad kaga jirtaa dunida, halka Afrikana ay kaga jirto 7aad. Waxay si xoog leh u maalgelisaa difaaca xuduudaheeda. Waxay leedahay 1,100 taangiyo oo dagaal ah oo ay ku jiraan kuwa Mareykanka ee Abrams. Morocco waxay leedahay ciidan aad u ballaaran oo ka kooban 200,000 oo askari. Ciidamada cirka waxay haystaan 50 diyaaradood dagaal iyo 36 helikobtar oo ay ku jiraan nooca Apache. Ciidamada badda waxay leeyihiin maraakiib yaryar oo difaaca xeebaha. Morocco sidoo kale waxay leedahay nidaamyo gantaalo oo casri ah. Angola waa kaalinta 16aad dunida, halka ay Afrika tahay waddanka 6aad. Waxayna ku tiirsan tahay dakhliga shidaalka si ay u xoojiso ciidamadeeda. Waxayna leedahay ciidan aad u ballaaran oo ka badan 107,000 oo askari. Waxay leedahay 379 taangiyo iyo gawaari gaashaaman oo badan. Ciidamada cirka waxay haystaan 23 diyaaradood dagaal iyo 90 diyaaradaha kumaatika u kaca oo ay ku jiraan nooca weerarka ee Mi-24. Ciidamada badda ee Angola waxay leeyihiin maraakiib yaryar oo ilaaliya xeebaha. Angola waxay si joogto ah u casriyeysaa ciidamadeeda. Itoobiya waa kaalinta 12aad dunida. Afrikana waxay ku jirtaa kaalinta 5aad. Waxayna xoogga saartaa inay ciidamo badan yeelato awood leh. Waxayna leedahay in ka badan 140,000 oo askari. Waxay leedahay in ka badan 400 oo taangiyo iyo ciidan dhul xoogan. Ciidamada cirka waxay leeyihiin 20 diyaaradood dagaal iyo diyaaradaha kumaatika u kaca oo tiro badan, kuwaas oo inta badan loo isticmaalo ilaalinta xuduudaha. Inkastoo dhaqaalahoodu uu kooban yahay, ciidamada Itoobiya waxay ku dhisan yihiin adkaysi iyo nidaam. South Africa waxay ku jirtaa kaalinta 4aad dunida. Afrikana kaalinta 4aad. Waxay ku hanatay tiknoolajiyaddeeda horumarsan ee dhinaca militariga. Waxay leedahay in ka badan 200 oo taangiyo iyo gawaari gaashaaman. South Africa waxay leedahay ciidan aad u ballaaran oo ka kooban 90,000 oo askari. Ciidamada cirka waxay haystaan 17 diyaaradood dagaal, 25 diyaaradaha kumaatika u kaca iyo qalab casri ah oo loogu talagalay nabad ilaalinta.
ciidamada badda waxay leeyihiin maraakiibta quusta ee submariniska loo yaqaano oo loogu talagalay inay si heer sare ah u shaqeeyaan. South Africa waxay ku faantaa inay ku samaysato inta badan qalabkeeda militari gudaha dalka. Nigeria waa dalka saddexaad ee ugu awoodda badan Afrika, kuna jira kaalinta 11aad dunida. Waxay leedahay 350 taangiyo dagaal ah oo xoogga saaraya dagaalada dhulka. Nigeria waxay leedahay ciidan aad u ballaaran oo ka kooban 215,000 oo askari. Ciidamada cirka waxay leeyihiin 16 diyaaradood dagaal iyo 51 diyaaradaha qumaatiga u kaca helikobtarka, kuwaas oo badanaa loo isticmaalo la dagaalanka ururka argagixisada ee Boko Haram. Nigeria sidoo kale waxay isticmaashaa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee drone-iska si ay u baaraan oo u weeraraan argagixisada. Nigeria waxay si weyn u maalgelisaa tababarka ciidamadeeda si ay ula dagaalamaan dhibaatooyinka gudaha. Algeria waa dalka labaad ee ugu awoodda badan Afrika, kuna jira kaalinta 26aad dunida. Waxay leedahay in ka badan 2,200 oo taangi, badankoodna waa nooca Ruushka ee loo yaqaano T-90. Algeria waxay leedahay ciidan aad u ballaaran oo ka badan 325,000 oo askari. Ciidamada cirka waxay haystaan 137 diyaaradood dagaal iyo diyaarado qumaatiga u kaca oo badan oo loogu talagalay dagaalka iyo daabulaadda ciidamada. Ciidamada badda Algeria waxay leeyihiin maraakiibta quusta ee loo yaqaano submariniska iyo maraakiibta dagaalka si ay u ilaaliyaan xeebaha Mediterranean-ka. Dhaqaalaha shidaalka ayaa ka caawiya Algeria inay si joogto ah u cusboonaysiiso ciidamadeeda. Masar waa dalka ugu awoodda badan Afrika, kuna jira kaalinta 19aad dunida. Waxay leedahay in ka badan 4,300 oo taangi, taas oo ka dhigaysa waddanka ugu badan ee haysta Afrika taangiyada ugu badan. Ciidamada cirka ee Masar waxay haystaan ku dhowaad 304 diyaaradood oo dagaal ah iyo 88 diyaaradaha qumaatiga u kaca oo ay ku jiraan kuwa casriga ah ee Abac. Ciidamada badda waxay leeyihiin maraakiibta dagaalka, maraakiibta quusta iyo kuwa difaaca xeebaha oo ay ku ilaaliso kanaalka Suez. Masar waxay leedahay ciidan aad u ballaaran oo ka badan 1 milyan oo askari oo ay ku jiraan kuwa heegan ah iyo kuwa kayd ahba.